madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay ka hadlay munaasabadka xurriyadda iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya 22 Juun 1960 oo ay ka soo wareegatay 60 sano guuradeedii. waxaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa ku dheeraaday midnimada labada gobol ee waqooyi koonfur ee Soomaaliya iyo ay gumaysan jireen labada dal Ingiriisiga iyo Talyaaniga. marxaladihii uu soo maray gumaysigii dalka haystay iyo sida lagu guuleystay hadaladiisana waxaa ka mid ah yaan u soconnaa marka sida la sheego 60 sanaan jirnaa 30 sano waa wada joognay meel fiican bay wax noo maraayeen inkastoo dhaliilo ay jireen laakiin dalku waa haystay dalku mid buu ahaa ummadeennu waxay la tartamaysaa caalamka intiisa kale ma jirin kala qobqob qabyaalad xoog leh ma jirin oo qofku uu ka hormariyo wadaniyadda iyo qarannimada ma jirin. taas weeye waxa aan rabno inaan wax ka cabirana marka 30kii la soo dhaafay waxaan sameynay wixii ka duwanaa wixii dhalinyaradaas ay sameeyeen Soomaaliyeed oo ahaa in ay iska fogeeyaan wax alla wixii kala qaybin kara oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo gobolaysiga ay ku xigto. taasna runtii 30kii sano ee la soo dhaafay aan ka galnay adduunka meel aad iyo aad u hooseysa